munaasabadan oo xilka kala wareegayeen agaasimaha cusub ee wasaaradda xidhka golayaasha ayaa arrimaha dastuurka Somaliland ee madaxweynaha Somaliland u soo magacaabay xilkaasi Khadar Nuur Cabdi Bubaal iyo sidoo kale agaasimihii hore wasaaraddaasi Deeqa Cabdi Yuusuf ayaa lagu qabtay wasaaradda xidhka golayaasha iyo arrimaha dastuurka ee magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay wasiirka dastuurka, wasiirka wasaaradda caafimaadka, wasiir ku-xigeenka wasaaradda xidhka golayaasha, siyaasiyiin iyo sidoo kale agaasimaha maamul wanaagga iyo marti sharaf kale waxaana halkaasi ka hadashay agaasimihii hore ee wasaaradda xidhka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Somaliland Deeqa Cabdi Yuusuf waxaana ku dheeraatay isla markaana ay sharaxday waxyaabihii u qabsoomay muddadii ay haysay xilkaasi iyo wada shaqaynta golayaasha qaranka oo halka ugu muhiimsan ah oo warqadda madaxtooyada ka soo baxda waxay si toos ah u timaadaa wasaaraddan annagana gaarsiinaa golayaasha wakiilada iyo guurtida ama golaha baarlamaanka wasaaraddan waxay ka shaqeysaa ama ay meel marisaa hawlaha xukuumadda hor yaala xagga xeer dejinta wasiirku wuxuu si official u yahay wasiirka wasaaraddu la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha sharciga marka yaan la fudaysanin wasaaradda gaadiidka wasaaraddu ay haysato waa 8 gaari oo wasiir ku-xigeenka kiisa ah oo waqtigii aan wasiirka ku wareejinay fadhiyay ayaa waqtiga ay noo suura gashay inaanu kicino markii la noo soo magacaabay wasiir iyo wasiir ku-xigeen waana ku shaqeeyay marka hal gaari uun baa ciladaysan halkaasina wuxuu yaalaa wax weeyaan goobtii lagu hagaajinayay iyo hal bas oo shaqaaluhu raacaan oo isaguna geerashka inaga maqan guud ahaan gaadiidku waa 8 page-ka ay wasaaraddu leedahay ee Facebook-ga oo in ka badan 22,000 oo qof imika ay ku jiraan una baahan in la sii horumariyo waa mareegaha ay wasaaraddu ku shaqeyso wasaaraddu waxay leedahay website gaar ah oo ay leedahay xarunta tababarka dimuqraadiyadda iyo dawlad wanaagga wasaaraddu waa wasaarad khadarow aad iyo aad u wanaagsan halkan warbixino badan oo tafaqiran idin kama sheegin waxaan diidayaa wasiiraduna in badan bay fadhiyeen agaasima khadarna ma kala fogino waxaan ogahay meeshaan u baahdo iyo meeshu u baahdaba inaan sheelayno horena waanu wada shaqeynay imikana diyaar baan ahay wasaaradda inaan la sii shaqeeyo mas'uuliyiin isugu jira siyaasiyiin aqoon-yahano iyo sidoo kale agaasimaha guud ee maamul wanaagga maareeyihii hore madbacadda qaranka wasiirkii hore wasaaradda shaqagelinta Hinda Jaamac Xirsi Gaani iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda xidhka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Somaliland ayaa bogaadiyay isla markaana sagootiyay agaasimihii hore sidoo kale la soo dhaweeyay agaasimaha cusub inaan maanta ka soo qayb galo munaasabadan ay xidhka kala wareegayaan labadayda walaal agaasimaha hore Deeqa iyo agaasimaha cusub Khadar Nuur Bubaal waxaan idin leeyahay Khadarna ilaahay ha kuu fududeeyo xilka hana kugu asturo oo ha kugu guuleeyo walaashay Deeqana waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala isaguna waqtigii aad shaqaysanay miisaanka xasanaadka kugu daro oo hal door baa ku soo biiray wasaaraddan laakiin anu waxaan u sheegayaa wasaaradda wasiirkeeda ugu horeeyo dabcan markaan saalay Deeqa kama tagayo Deeqa way nala soo shaqaysay lafteedu Deeqa kaliya agaasimaha dastuurka kulana shaqeynay laakiin xubin haween oo firfircoon oo arrimaha haweenka wasaaraddeeda kala shaqaysay ahayd oo dabcan aanu ka marxaati furna shaqaalahayaga oo dhan aan leeyahay walaal taabkiyo shaqada nala gashay dabcan waa wax ku yaalo waan ku ognahay waxaan oran lahaa agaasimayaasha xilalka wareejinaya ee khibradda faraha badan leh dalka u leh in aan suuqa lagu sii daynin ee ay qaranka u shaqeeyaan runtii wasaaraddu maanta waxay nasiib u yeelatay inay agaasimo firfircoon oo gabadha inay maanta xilkii wareejinayso oo Khadar oo isaguna aad u firfircoon ku wareejinayso labadooduba waxay ka yimaadeen bahda civil society-ga labadooduba waa laba qof oo karti leh weynino agaasimaha iyaga cusub oo runtii ay nooga muuqato saadaal aad u wanaagsan maadaama shaqaalihiisi la socdaan aad baan ugu faraxsanahay anagu waxaan ku soo dhaweynaynaa isku duubni wada jir iyo inaan kula shaqeyno insha Allah waxa kaloon ducaayo iyaga laftirkooga hambalyo u dirayaa qoladii hore muxuu ahaa xilka lagala wareegay wasiirkii hore u horeeyo iyo agaasimaha guud ee hadda xilka ka tagaya agaasimaha guud ee hadda xilka la wareegayna waxaan ugu ducaynaynaa insha Allah ta'ala inuu ilaahay xilka u fudaydiyo in ilaahay maaragtay mas'uuliyadda culus ee uu qaaday inuu ilaahay u fudaydiyo
اسماء عصب مدحوينها قرنك usoo igmaday wasaaraddan hadii aan ku horeeyo agaasimaha guud ee maanta xilka wareejinaya waxaan leeyahay xilka qaranku waa meerto maalinba qof baa qarankan u shaqeeya sidaynu wada ogsoonahay ilaa madaxweynaheennii ayaa wareejiyay maantana maxay haytay waa farxad kale waana maxay haytay qarannimo iyo wadaniyad halkan maxay tahay iyagana la dardaarmiyaa shaqaalaha waxaan leeyahay shaqaaluhu waxa weeyaan ilmahaaga oo kale ilmahaaga ma kala jecel waa hadba suu kugu kala dhegan nugul yahay waxaan leeyahay shaqaale weynaha wasaaradda sideed agaasimi hore ula shaqeynayseen inaad agaasimaha cusubna u soo dhaweysaan nuur cabdi buubaal waa saaxiibkay waa dhalinyaradii aan weligay gacanta ku hayay waxaan ku bartay 2011 isagoo si voluntary ah ooga shaqeynay xabsiyada Soomaaliland qadar waa run hiigsi ka weyn buu lahaa dabac ka weyn buu lahaa qadar oo haddii qalinka ku qabtay annagana aragde kiiba boqolaan u mahadnaqaya iyada iyo wasiirkayga garaadkaaba hadal badan balihi sidoo kale waxa isaguna halkaasi ka hadlay Khadar Nuur Cabdi Bulumbul agaasimaha cusub ee wasaaradda xilka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Soomaaliland waxaana uu sharaxay isla markaana ku dheeraaday waxyaabaha u qorshaysan aad baad runtii u mahadsantihiin guud ahaan rag badan baa taagan waxa arrinta muhiimka ah weeyaan qaranku waa mas'uuliyad qofkuna inuu mas'uuliyadda qaado oo dareema muhiima way qofka sharcigu isagana inuu ilaaliyo isaguna dadka ku ilaaliyo aad iyo aad muhiima waxaan jeclahay xilka inaad igu dacaysaan wasaaradda inaan waxun ku daro kullee maalin baan ka tagayay waxaa sidoo kale iyaguna halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda xilka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Soomaaliland Axmed Daahir Xasan iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Dr. Xuseen Bashiir Khadar waa mas'uul cusub runtii dad badan baa ka dhawaajiyay Khadar waxaan leeyahay adeer waxa lagu keenay wasaarad miisaan leh oo sharaf leh oo aad u culus oo meeshii lagu naqay mustambeedka wadanka ah waynu ducaynaa ninka cusub waxaan kula dardaarmayaa Khadar waxa laga baahan yahay sinaan iyo cadaalad baa laga baahan yahay wax badan oo aad ku dhaqmi jirtay xorriyad badan oo lahayd maanta waad iloobaysaa waa lagu caayayaa inaad u duqaataa loo baahan yahay waa lagu aflagaadeynaya meelihii aad fadhiisan jirtay ma fadhiisan karaysid mas'uul baad noqotay qaran marka insha Allah taasan kula dardaarmaya labada agaasime ee xilka la kala wareegay agaasimaha sii daadegaysa ee deeqa runtii anigu hadda 2 bilood oo xalaab aan wada shaqeynaynay inaan wanaagsan oo sharaf leh oo aqoon leh oo dhisan oo runtii waxa weeyaan milga badan leh oo shaqaalaha ka warhaysa oo aniga si wacan soo dhaweysay iyana taasi ahayd markaan run idin sheego waxaan isku dayay oo campaign dheer u galay in la iska daayo anytime waqti kasta aad iyo aad baan kugu mahadcelinaynaa ilaahayna meel khayr qabtaa ku geeyo duca garaad baan ku raacinaynaa iyo duca Sheekh Ayuub marka Khadar run marka laga hadlo dad badan oo ay ehel anaga lafteeda ehelnahay oo ay maarif yihiin guud ahaan bulshada reer Soomaaliland xilka Khadar loo magacaabay waa Khadar waa nin la soo wada dhaweeyay weeye marka xaqiiq laga hadlo